بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حديث صحيح سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه باقي سياب لورينيا وحولي سعد نعسة وسلام بعد دد صحابة كمذا أيو وحسيي مركا سعد رضي الله عنه وأرضاه هنا مرك ماشي أيو فديا رواية واحد ورني عامر بن سعد بن أبي وقاص marka saad asagoo fadhiyana salaam rag saxaabada kamid ayuu wax siiyay saad wuxuu leeyahay nabi salaam waxa uu ka tagay uusan waxba siinin dad wuxuu yiri anigu aan isleeyahay kuwa wax la siiyay waa uu ka fiican yahay inuu ka fiican yahay macna aniga ay ila muuqato kuwana maxaa la kana ka mudnaan badnaa markaas ayiri ya rasuulallah والله إني لا أراه مؤمنا رسولك الله نك أكتكتي وهذا وحب سيرين أنا وحنو جدا إنه مؤمن معنى نين قاعد قيمة كل قيمة إليين من عليه والسلام وحوري أو مسلما فقال أو مسلما وحوري فسكت قليلا ثم غلبني ما علم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا أو قال مسلما حسنا مركب حوري سعد بن أبي وقاص نكا وناقي أن كوغا أي غالب نقضي بوليه markaas ya rasuulallah maxaa lahaay ninka fulaan la yiraahdo anu waxaan u jeedaa khiyaar inuu yahay waay maxaa lahaay aadan wax u siinin marka naasad sunnadana waa ku celiyay macna waa iga aamusay hadana wuxuu waan ku celiyay wuxuu ya rasuulallah ma a'lamu minhu fa'ud maxaa salaam rasuulka ilaahay ninka kan aniga wanaag baan ku ogahay subhanallah macna taa waxay tusinaysaa qof walaalkaaga haddaad wanaag ku ogtahay khayr aad ku ogtahay oo mararka qaar ay dhici karayso in dad aan khiyaar ahayn ay xumaynayaan qofka muuminka waxa fiicnaa warniyo ninkaas ana wanaag baan ku ogahay ninkaas khayr baan ku ogahay ninka aan xumaati kuma ogi ninka maxaa la wanaag baan ku ogahay macna dadnimada ayaa keenaysa walaal saxaas salaam markuu wuxuu yiri مثلا مركو سدح جير وكل يا رسول الله نكان ان خيارا وجيدا نكان ان محل الله وحسيسين مع نوع ما رضي الله عنه وارضاه سبحانه وتعالى جواب على سلام دغيس وحوري يا سعد اني لا اعطي الرجل وحوري اني قفبا وحسين يا بوري وغيره احب الي منه وحوري مدك ان وحسيي وحان كجعلها بوري مد انا وحبا سينين سبحان الله وحوري كان ان وحسيي وحان كجعلها مدك ان كتغي ان وحبا سينين كان وحان وحو سيي بولي خشيه ان يكبه الله في النار wuxuu dadka qaarkood hadii aan wax la siinin islaamnimadooda khatar ku sugan marka wuxuu salaam wuxuu leeyahay warkan aan ka tagay waxaan uga tagay waxa weeyaan iimaanka qalbigiisa ku jira wanaaga qalbigiisa ku jira maxal qanaacada qalbigiisa ku jira daraadeeda ayaan uga tagay midka aan wax siiyay asaan u baqanaya waxaan siiyay jacayl daraadeeda ma laakiin waxaan diidayaa inuu maxal inaan naarka badbaadiyaan raba سبحان الله ولكن عليه السلام واركيسا دد محل الله فقراء ومساكين او وحبه هيسانين بول السلام وحبه محل الله كو odayaalka ka qabiilada malaayiin muusi waay السلام wuxuu kuwa kan iimaanka haya iimaankooda ayaa wax walba ka qiimo badan marka ilaahay wuxuu siiyay qanaaca iyo iimaan buu ilaahay kana waxa weeyaan hunguri uu raadinaya سبحان الله marka wajida marka ilaa waxaan lahay iimaanka qiimaha uu leeyahay سبحان الله dadku waxa laga yaabaa dadku waxay ku qiimeeyaan ninka nar fiican buu xirtaa guri fiican buu ku nooli mujtamaca xisb waa la ixtiraama nin kursi loo kacaw kana waxa weeyaa miskiin maya waxba qiimo ma leh taas waa adduunyo way waa miisaanka adduunyo way kana aakhira ma miisaanka aakhira wax weeyaan qofba qofku ka iimaan badan qofba qofku ka qanaac badan qofba qofku ilaahay agtiisa ku kalsoonida u taala ay ku weeyahay ay ku weyntahay ayaa qofku sharaf iyo qiimo uu ku yeelanaya marka waxa uu jeedaa marka in subhanahu wa ta'ala wali warkan iimaankiisa ayaan u deynaya iimaankiisa ku filan kana halaa weeye suuqa naar ugu dhicin nabi salaam wuxuu leeyahay sidaas aan yeelaya marka tacaamulka dadka in qofku ogaado waa wax aad iyo aad u qiimo badan oo qofku maxaa Allah uu ogaado in adduunyadu ay qiimo lahayn laakiin sharafkii wanaagu yahay iimaanka iyo qofka Ilaahay wax siiyay Allah naga dhigo kuwo maxaa Allah ahlu iimaana oo qulubtooda Ilaahay iimaan uu ka buuxiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.